hello السلام عليكم خيري برواقان نرجينا ميل walba oo aad joogtaan waa Fathia Absie and anaga maanta waa Christmas day wax waliba waa bandow guriyihii baan iska fadhinaa raashinuun baan isla dhacaynaa talaagadu baan marba ka soo jiireynaa marka waxaan isri kuleyba maadaama xaalku iska jiireys yahay dee Mahadho 14 iska duu marka ku soo dhawaada qaybtii 14aad ee sheekadii musalsalkii Mahadho waxay noo mareysay iyada oo Milgo iyo Bile ay la casheeyeen Catherine oo si surprise ay ula kulmeen labadii inanay saaxiibadii Paul iyo John iyo jacaylkiisii hore Jamila iyadoo aanay Catherine u sheegin inay maaragtay ku surprise karaysa waxay noo mareysay iyadoo Milgo miskiinada waxba la soconin ay islaantu marba miiskii cashada iyadoo la fadhiyo marba su'aal ku soo tuurto ugu dambeyntii ay weydiisay Milgo qabiilkeeda ku tiri ma isaaq baa tahay Milgona inta yara naxday ay tiri yes halkaasay noo mareysay waxaad soonaysaa Milgo tole maxay u weydiin weyday iyaduna Bile aabihii qoladiisa laakiin laguma soo korin qabiil iyo qabyaaladii waxyaabahaas marka dhalinyarada meelahan ku dhalatay runtii waxaa dambe kama laha uma dheg taagaan marka it made no sense to her laakiin way ogtahay dee inay isaaq tahay laakiin that's it Catherine fargeetadii intay ku mudatay in yaroo hiliba iyo in yaroo qudrada iyo in yaroo maaragtay sauce isugu mudatay by the perfect bite afka sidaa u gashatay markaasay Milgo saa u yara eegtay marna hoos yara eegtaa marna Milgo yara eegtaa mar Jamila eegtaa Jamila lafteedu marba waxay yara daawanaysaa Bile se wuxuu mashquul ku yahay Milgo oo marba he's making sure that she's okay gacanta ka taabo muxuu ahaa garabka ka yara taabo saa u yara riix he wants to make sure inay okay tahay wuu arkaa hooyadii inay aad maaragtay u xiiseynayso inay waxyaabo badan weydiiso Catherine Bilay daawanaysaa indhaha la raacaysaa marba Jamilo oo daawanaysa isagiyo Milgo daawanaya labadii inan ay kale sports iyo adigu waa la iska sheekaysanaya marna Bile isla sheekaysanayaan Bile inta hooyadii iyo Jamila iyo inamada iyo la sheekaysanaya sports laga hadlayo weatherka laga hadlayo siyaasad xoogaa laga yara hadlayo mar walba wuxuu u hanqal taagayaa Milgo iyo waxay inay conversationka ka qayb qaadato iyo inay comfortable tahay inay okay tahay waxaas oo dhan adigu cala kulli xaal islaanta markaa mar dambe waxay weydiisay Milgo adigu Hargeysa ma tagtay bariyahan goorma Hargeysa kuugu dambeysay markaasay tiri Milgo 7-8 years ago markaasay tiri Hargeysa hadeer aad bay u kortay soo maaha how are things markaasay tiri waa magaalo weyno almost 1 million people baa ku nool waa meel maaragtay samxad miidhan oo traffic you feel like you're in a big city markaasay tiri Bile's dad was born there Bile aabihii halkaas ku dhashay Hargeysa ku dhashay moogta markaasay Milgo tiri oh really yeah okay very interesting markaasuu Bile ku yiri hey we're both from Hargeysa markaasay tiri Catherine yeah he was born in Dami weligaa ma maqashay Dami markaasay Milgo tiri Dami no not really laakiin te meelo badan ba maan tegin intaan joognay marka waxba kama garanayo but I'm sure my parents know I'm sure hooyada iyo aabahay waalidkay way garanayaan Dami laakiin anigu ma aqaan islaanta intay saagtay tiri miskiinadan naifka waxba la soconin waa iska daacad Milgo waxba ma oga Bilena sidaas oo kale he has no idea waxaan laga hadlayaba
milgo bala kaftamaya xuleeyahay labadeenu ba halkan ku dhalnay la hargeysanu ka nimid original family-dan ku yimaadeen maybe hargeysanu isu raaci illa allo nima waxoogayna cadaabin denden qaar badan oo idin kamid ah intii aad sheekada akhriyeyseen runtii si fiican u dhageystay oo dareemay halka ay sheekadu ku socoto iyo qalbi jabkii bila aabihii ku dhacay inuu ahaa waxyaabo la xidhiidha bini-aadanimadaadii oo dhiskaan lagu sameeyey bal ka waran dadkaagii oo aad ka dhalatay oo aad dhan walba kala mid tahay oo kule waad naga duwan tahay waad naga hooseysaa waanu kaa sarreynaa qofnimadaadii oo laleeyahay complete maaha naftaadii dumarka muraara dilaaca marka la yidhaahdo konton baatiin bal imagine qofnimadaadii oo laleeyahay is not complete bilaa aabihii nin aada smart waabuu ahaa waxbarashada aada iyo aada ugu wanaagsan dowladdii Soomaaliya siyaad barre markaa jirtay baa soo siisay scholarship inuu masters halkan ka qaato saan hore idinku sheegay waa kii sii joogay in muddaa guursaday rajadiisu waxay mar walba ahayd isbeddel baa iman doona waqti waxa la gaari doonaa dadku ay waxaan ka gudbeen oo ay iskarteen intii dagaalka sokeeya dhacayna dee wuxuu bay sidii Soomaaliya wax badan oo ay ku waana qaadato ayay aragtay sidaa awgeed iminka dalkaagii intaad cilmigan aad korsatay baad geyn doontaa maadaama ay isbedeleen oo ay waaya arkeen oo ay qabiil qabiil isu laayeen isku baaba'een kala adkaan waayeen balanbal iyo ba oo dhammina u dhammaaday somehow he was wuxuu ahaa qof rajo ku nool ah in dadkii isbedeleen deetna uu dadkiisii wuxuu qaban doono dalkiisii ku noqon doono oo maaragtay dee horumar wanaagsan gaadhsiin doono waxaa soo caddaatay markuu shirkii tegay inaan boosuga bannaanayn 4.5 iyo qashin baa wax lagu kala qaybsanayay anyway saasoo tahay haddana 4.5kii dee waa inaad haysataa dad kuu codaynaya adiga isagoo ah qofka maaragtay ama labada qofeed the most highly educated people meesha joogay because garab muu haysan qabiil qalbi jabkii kusoo dhacay muraara dilaacii loo foodgarayn waaye cod uu waxba u waayey not even a single voice ayaa dee maaragtay wadnihiisii dhaawac ku keentay qalbigiisii laba heesoodba way soo xusuusiyaanoo ay kala qaadaan mid waxa qaada alla yaa raxmo maxamed saleebaan uu yidhaahdo inkastoo nin geesi ragugeeda adeeg yahay haddaan garabka lala qaban guryoodi maaye it's all about qabiil Soomaali si kastaad gees u tahay si kastood cajiib u tahay qabyaalada aabaheed cuntay ee ina naafaysay ina aafaysay aynu iska garan weynay imagine dadka sidaa ku nool garab iyo gaashaantoona aan haysan cid u naxaysa cid u garaabaysa cid xanuunkooda dareemaysa midna aan haysan imagine that heesta kalena cumar dhuulaa qaada ilaa ku naxariiso wuxuu yidhaahdaa geesi iyo hanadba la garwaaqsada talaad gorfaysa geed lalaha taga runta laga garaaba layskuma gayaxao gees lagama ege
garaxiyo adoonkoda umalayn garaxiyo adoonkoda umalayn hawsha ilaga ama gooni noqo aan ka goe labada heesood badda waxay ka hadlayaan sida haddaad Soomaali tahay dee haddaanad qabiil qola haddaanad ku tiirsanayn you're not much waxba badan ma tihid marka adigu calaa kulli xaal labadan qof ee dhalinyarada ahi midna waxan waxba kala ma socdo bile exactly ma oga abhi wuxuu dhintay iyo maaragtay the depression-kii abhi waxba wuu arki jiray abhi inuu xogaa daweyn qaato yara sad yahay laakiin exactly saamaynta ku yeelatay ma garanayn waxba kala ma socon laakiin hooyadii she knows everything waxyaabaha isku attract gareeyay labadooda waxay ahayd iyaduna maadaama ay halkan the African American ahayd si kastoo ay mix u tahay African American the one drop rule waxa la yiraahdaa jira Mareykan oo jiri jiray one walina iska jira one drop dhibic madow haday kugu jirto black baa tahay ilo baad cadaan ka doontidu ay kaati it's called the human stain it was seen as a stain mark wax ka meedaya aan jirin inagana sidaas oo kale you know I mean Soomaalida xabadda maaragtay dadka gabooyaha ah iyo Soomaalida kale isguursada especially reer qoyga kale min sheekooyin baad maqlaysaa barmidgaan iyo waxyaabo insane ah anyway waxba kala ma socdaan dadkan masaakiinta ahi waxan oo dhan marka Catherine maadaama ay historygaas iyadu de ku kortay iyadaba la ximin jiray bila aabihii iyo iyadu UCLA markay isku barteen si fiican bay isu fahmeen because iyaduna xuquuqda dadka madoobay activist waxay u dagaalamaysay isaguna de maankiisa waxa ku jirtay wax baro noqo dadkaaga xaqooda u soo dhicay hadii la haydo isbedel baad keeni doontaa dhulkii markaad ku noqoto marka they had so much in common wax walba uu la wadaagay marka waa muhiim inay bila ilaaliso inkastoo waxba weligeed la wadaagin adigu habeenkii sidii baa lagu kala tagay markuu bila hadhowto geeyay milgo gurigii ayuu hooyadii telephone soo diray intuu jidka ku soo jiro wuxuu ku yiri hooyo what came over you maxaa ku helay markaas sidii maxaad ka wadaa markaas yiri waxaan dareemayay inaad milgo hadalka ku yar gubaysay oo su'aalo badan weydiinaysay midda kale imaad sheegin inaad soo casuntay asxaabtaydii iyo waliba Jamila what was that all about maxaad uga dan lahayd markaas tiri oh waan ilaaway waxaan moodayaan ku sheegay kuma sheegin markaas yiri no imaad sheegin habeenkiina waxba idhaahdo meesha maan doonaynin aniga waxaad ugu tiri milgay adiga cashaydin sameynaya asxaabtayda si kastaan u jecelahay de kumaan tala gelin ismaan waliba Jamila soo casuntay markaas tiri what's wrong with inviting Jamila haddaan John iyo invite gareeyay iyo Paul markaas yiri it's not the same hooyo isku mid maaha Jamila aniga taariikhdeeda waad ogtahay mudday nagu qaadatay inaanu kala dhamaano gabadh cusub baan bartay oon keenayay meeshood soo casuntay inaad aniga isiisay had waqti aan anigu ugu sheego you know waad ogtahay wali inay maaragtay doonayso iraajiciso inaad isku kaaya ka shifto ma ahayn islaantii adigu he took her to task inkastoo hooyadii uu de ixtiraamo laakiin de wuxuu yiri waad ugu khaldantay inaad surprise sidaas igu samayso ma ahayn anyway way raali gelisay oo waxay ku tiri I'm sorry raali how anigu just waxaan islahaa bila iyo asxaabtiisa iyo
dadku jecel yahay oo dhan soo casino iska wada casheeya I miss your friends aniguba lonely baan haya asxaabtaadii labadanina waa wiilashaydii Jamiilana de anu gabadh ma lihi waa inanteedo kale oo markaasuu yidhi I understand laakiin de waxaasoo kale inaad igala tashato weeyaan oo ii sheegtay waxba kama qabo aniga dad tiraahdo waxaan casumayaa maaragtay asxaabtaadii just inaad ii sheegto uun waa important adigu habeenkii gurigii markuu tagay oo bijaamadiisii soo gashaday cadayday sariirtiisii yimi ayuu as usual uu yara fikirayo sariirtii buu siilinkiisii maaragtay uu dayax ka arkay daruuraha buu sidaa u daawaday cabaar restless buu yara noqday hadalladii buu ka yara fikiray hooyadii iyo milgo inay yara quiet ahayd buu dib haddana u tixraacay inay xogaa waayo mar intay sii socdeen markuu gurigeedii kusii waday aad bay quiet u ahayd way aamusnayd marka xogaa wuu ka yara walwalsanaa maybe she became wuxuu islahaa maybe uncomfortable bay noqotay malaa xogaa malaa raalli kamay ahayn siday hooyadaa wax weydiinaysay ula jeexjeexaysay iyo in hooyadaa extaadii soo invite garaysay maybe taasi waxay dareensiisay milgo waxyaabahaas oo dhami in dee iyadu she doesn't belong here gabadhani waxaa suurtagala dee milgo inay dareento buu is yidhi malaa Catherine waxay haysanaysaa oo jeceshahay Jamiila wuxuu ka fikiray oo aada uga fikiray milgo markii dambe intuu soo sara fadhiistay oo cabaar fikiray ayuu taleefankiisa soo qato text message buu dira wuxuu yidhi have dinner with me tomorrow night milgo lafteedu bab iyo dig iyo damtaasay haysay oo way seexan weyda islaanta hadalladeedii bay ka fikiraysay dhowr jeer waxay ku qabatay Jamiilo oo daawanaysa Bile waxay indhaha la yar raacday John iyo Paul oo la kaftamaya maaragtay Jamiila waxyaabo badan oo ay soo wada mareen oo ay ka wada sheekaysanayeen afartooduba waxyaabahaas oo dhammi dareen aan farxad gelin bay milgo ku beereen haddana waxay soo xusuusataa Bile siduu u raali gelinayay Bile siduu mar walba gacanta u qabanayay Bile siduu mar walba timaheeda saa ugu yara salaaxayay Bile siduu mar walba garabka ugu yara taabanayay Bile siduu mar walba ula yara faqayay maaragtay yaroo haddana sii yara ursanayay halkaa marka text messagekii markay maqashay bay eegtay mise waa Bile markaasay yara qososhay waad iska garanaydaa dareenka feelinka marka qofkaa doonaysay uu kula soo text message kuu soo diro ood hadeer kala tagteen qalbigaaga markiiba ay gelayso Allah you care so much you can't sleep adiguna sidaadoo kale what a wonderful feeling have dinner with me tomorrow night ila cashee markaasoo nisaa sharaf bay tahay I'll be honored to you'll have to see me in the kitchen habeen dambe habeen dambe anaa cuntada kuu karinaya kitchenka u diyaar garow inaad anoo kitchenka ka shaqeynaya habeen dambe aragtid markaasay farxaysaa nisaa I look forward to it maba sugi karaba milgo inkastay gaadhi leedahay inta badan uu beriya bay qaadataa magaaladu way iska traffic badan tahay laakiin intay Bile isbarteen haddayba isarkayaan isagaa soo doona sidii la arki jiray raggu gabdhaha ay u romance garayn jireen courtship and really that is the kind of relationship ay haystaan maaragtay dee really romantic inanku takes in charge haddii casho tagaan cashada la bixinayo iyo haddii albaabka laga furayo haddii flowers la soo dirayo iyo haddii waxaasoo dhan I mean he's such a great guy waa man's man qurux udgoon waxbarasho softnimo kalgacal Bile haasiro Bile ilaahay uu siiyey waxaasoo dhan maasha Allah milgana waa sidaas leeg
marka runtii laba qof oo aad iyo aad isugu qalma taxki markuu helay isna hearts iyo waa la isu dirdiray iyo kisses iyo whatever labadiiba way iska seexdeen sariirteedii markay dib u noqotay habeenkii oo dhan waxaa la soo hadlayay milgo hooyadeed oo dee doonaysa inay ogaato ila Soomaali baynu noo qaboobi mayno nasan mayno ilaa aynu ogaano qofka qoladiisa some things never change telephone bay saa ugu soo qayraamsa milgo way iska yareyd markaraysa habeenkii ma rabin inay hooyadeed iyo aabaheed midna la hadasho aabaheed runtii aad ma soo waco marmar mooyaane inkastoo intaa uu ag taagan yahay hooyadeedoo mar walba ay la wada hadlaan hooyadeed baa aad u soo wacwacda markaa oo mar walba intaa doonaysa inay wax ogaato habboon text message bay soo qayraamisa ay leedahay what's going on we want to know Bile maxaad soo maqashay dee yaa nala soo hadal next lady Bile wuu soo doonay gurigii bay tageen isla markiiba wuu sii googostay qudradii oo dhan wuu sii googostay wax walba wuu sii diyaarsaday markuu isku wada shubi lahaa uun wax kalluun yaroo uu hoosta gelinayo penay baastada yaryar ee macaroniga penayda ah iyo qudradii wixiisii oo dhan way usii jarjanaayeen simple dishes bay iska ahaayeen gurigii bay yimaadeen isla markiiba apronkiisii bahalkan marka waxa la karinaya la gashto ayuu bahalkiisiiba ku turtay iyadana mid buu his and hers laba xab buu haystaa iyadana mid buu dhibay tir xagad bahalahan ka keentay miyaad iska haysateen he's like every man miyaanu haysan nin kastaaba miyaanu haysan what do you mean markaasay tiri I don't know anigu ma arkin dee should I be concerned yaad kaloo la wadaagtay markaasuu yidhi no wallahi Milgo don't be concerned honey I don't know waa iska haystay his and hers keeda iyo kiisa ayaa ku kala qoran waa iska haystay dee just in case I'm a man soo maha soo nin mi oo kolleyba nolosheeda gabadhi soo geli mayso marka you should feel lucky that you are the first one to wear it adaa ogow inaad nasiib badan tahay dee adigu waa tahay tii ugu horreysay xidhata ebnka marka bas way yaro qosqosleen waxay tiri wixii oo dhan waad sii googoosatay I mean this is the whole thing inaan kula googooyaan doonay because you don't worry salarkaad inuu googoynaysaa salarkii buu soo saarayo salarkii bay idin googoysay isna alaabtii buu isku dardaray marba waa la kaftamayaa garabkaa la isku yaro dhufanayaa waa la sheekaysanayaa waa laysu soo yaro dhawaanayaa marba halkan uu ka yaro dhunkanayaa marba barbarooni yaryar iyo basal yar iyo wax yar bay salarkii ku dartayo markaasuu usoo yaro dhawaadayo markaasay yaro barbarooniya xabad barbarooniya jeex yar afka u gelisay iyo markaasuu uu yaro dheeraayo markaasuu dhinac intii kale isna u dhiibayo markaas iyadna in yar afka kaga goosatayo it was so romantic dhow qof baa aan arkay fariimo soo qorayo gabadh leh sheekadan waxaa waaye habeen kasta cashalee lagu jiraa iyo waxaasaa lagu jiraa waxaan ka gudub oo noo soo gudbino sheekada noo dhiib haddii aad wax ku fahmi la-dahay oo dhadhan kuu yeelan la-dahay slow motionkii hadday dhadhan kuugu lahaan la-dahay inaad degdeg haddaad wax ku fahato degdegii nacnay anagu soomaalida waxaanu baraynaa slow motion deganaanshaha softnimada jacaylka romanska kala dambeynta nidaamka quruxda in dadku iyagoo aan ilaa xad isku xadgudbin haddana ay qalbigooda maaragtay midba midka kale qalbigiisa degi karo in keli la isku noqon karo iyadoon la isfuulin allah dad bay ka dhaadhacsan tahay laba qof hadday keli isku noqdaan halkan ay isla tegayaan it's not necessary qaar baa keli isku noqdo xataa aanba farsaa isu saarin haddana sheekaysta because people need privacy wixii isjeceli iyagoo ilaahay garanaya oo jecel oo aan isku xadgudbaynin haddana way islaalin karaan marka sheekooyin wax dhacdooyin dhaca baanu ka sheekaynaynaa oo jira oo reality khiyaali anigu iyo nonsense ma doonaya inaan maanta una ku warwareegayo wuu jeclaa way jeclayd wuu eegay way eegtay markaasay isdileen markaasay kala tageen markaasay isku soo noqdeen markaasuu telefoon no that's not what I'm about haddaanad ku qancisanayn maaragtay xasiloonidan iyo jacaylkan slow motionka ee slow cookingka ah waad fasaxan tahay feel free to unsubscribe and move on ila guduhu galay
dharkii uu gashanaa buu iska soo bedelay isagoo gudaha intuu galay buu surwaalkiina iska soo bedelay shaadh kalena la soo baxayo markaasuu isagoo shaadhkiisitoo aan weli gashanoo laakiin feedho qaawan ayuu kusoo noqday kitchenkii markaasay milgo oo cuntadii ilaalinaysay oo dining tableka iska fadhiday uunbaa soo jeesatay mise inankii oo markaa shaadhkii sidaa u gashaday oo weli shaadhkii u furan yahay 6-8 pack not 6-8 gacanta lagu sameeyey jidhkiisa quruxda maasha allah markaasuu saa u sii rajeestay markaas iyadna ka rajeestay markaasuu badhamadii xidhxidhay markaasuu ku yidhi sorry I'm sorry about that raalliga ahow waxaan isiri waan soo cuntadii gubatay markaasay ku tiri you have nothing to be sorry about it's okay xashinkii baa diyaar noqonaya way soo gurayaan miiskay saaranayaan candles bay daaranayaan music yar bay ku yara tuuranayaan jazz in the background lightskii siyaaral oo rising ah beautiful dahyo cadcad baa halkaa ugu xidhan oo dahyadiio daaqad buu yara furayo markaasay in yar marna sidaa iyo sidaa dahyadii cadcad aa leeyihiin it is just so beautiful gacantay saa isu qabsadeen faatixay akhristeen cashadii markay dhammaysteen bay balconiga u baxeen oo balconigii bay iska istaageen oo magaaladii bay iska daawanayaan oo iska sheekaysteen cabaaro markaasuu intuu xaggan kaga yimi oo wejigiisa halkaa garhkiisa sidaa usoo saaray dhexdana sidaa u qabsaday oo halkaa dhegta wuxuu ugu sheegay ku yiri I love you I love you markaasay she took a deep breath intay neebsatay way sidaa wejigeedii ku tiri sidaa ugu qabatay waxaan idinkaga tegayaa beejka 3aad ee fad galbeed inayay faalaadani galabtii fogeyde farxaddii oo kalgacalkan ku fadhinayo acnayde hayeeshee ifahano quruxdan filayay furayaasha dhiigiyo hoy hoy wadnaha soo kumaad qidin jacaylkii milgo iyo bile xididada qalbiga iyo halbowlayaashu sida faraska sidaa ah u dhex cararaya ilaa qaybteena 15 khayr iyo barwaaqo isku ognahay love you nabadaya